السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أصحابتي القالي وعندي سلامي دمانتين وميل وبواتونك أدك جوكتان kusoo dhawaada channelkeena cooking with Hayat waxaan idin la wadaagayaa rabbi hadduu qadar cashiir oo aad u fudud insha Allah oo quick and easy ah biidhnillah sida ila socda ahbaabi maqliga waxa iigu jira waa basal yar oo saliid aan ku soo shubay oo aan ku dalacayo iyo kaarot aan soo xoqay insha Allah waa inta biidhnillah wax yar oo cusbo ayaan ku darayaa wax kale kuma daraayo insha Allah ila sii socda sidaan u sameynayo kala saxankan waxaan ku heesanaa baradho aan biyo ku soo kariyay insha Allah sida ay la socdo biyo ayaan ku soo karkariyay way ii bisishahay qofka kore ama diirka ama maqaarka hadba sida u taqaanid insha Allah ayaan ka fiiqi doonaa ila sii socdo si aad yani u ogaataan biidhnillah sida aan u sameynayo walaalahayga haddana waxaan jajabinaynaa yani ama aan burburin doonaa baradhadii insha Allah sida ay la socdo baradhada waan soo kariyay sida hore idinkugu sheegay إن شاء الله سيفي عن مركو ربيا أبو بسلاسي عن يعني كودبين مركو الدنباء عاد استعمالي سيد بإذن الله سيدا إلى الصعودة برداد أيان صوري قايا أما أنصو بربورين آيا بإذن الله وحي كالا عن قدر آيان وعن قدر الدونا إلى سيصادة إن شاء الله baabi haddana baradhadii ayaan ku darayaa baradhada waan soo fiiqay kadibna waan soo xoqay insha Allah waxaan ku dul darsanaynaa basashii iyo kaaroodkii aan yani dalaceena ee dabka ii saarnaa bismillah waan isku walaaqeynaa cusbo yar ayaan ku daray insha Allah idima tusin iga raali ahaada wax yar oo cusbo ayaan ku daray wax kale kuma daraayo biidhnillah sida hore idinkugu soo sheegay رفيقة أبوتالي هاتو كرالي هذا إن شاء الله إلى صيصادة وعشيرو آدو فودد ما إن شاء الله أن أمعان سيبا عروتا أي أغفي عنتهاي أي آدو أغفي في عنتهاي عروتا صدح بسنة كوين إن شاء الله أفرت سنة وشنت سنة إلى يعني وحي كسيوين بإذن الله تدقوا وين ويسميسان كران لكن مصطلي ما أفعنا إن يعني عشران وكلا سميسان ويا عشفاد له واي baradho ayaa ku jirta waxaan kaloo ku dari doonaa cheese insha Allah baradhadan waa lagu naaxaa sidaan wada ognahay ama waa lagu caylaa insha Allah iyo cheese kaba laakiin caruurta aad ay ugu fiican tahay baradhada way korinaysaa biidhnillah maadaama caruurta koriimo ay u socoto oo iyaga waqtigooda uu dhiman yahay insha Allah baradhadana yani way korinaysaa oo yani ilmaha gacanta haday ka yihiin way ku naaxinaysaa biidhnillah marka ahbaabi sida ila socda insha Allah waan walaaqeynaa si fiican ayaan u walaaqeynaa si ay isu dhexgalaan insha Allah after 2 minutes waan ka qaadi doonaa ama dabka ayaan u daminayaa biidhnillah ila sii socda yani wixii aan ku dhex ridi doono iyo wixii yani aan ka sameyn doono insha Allah si aad u ogaataan weelkan ayaan idin leeyahay mar kale asxaabteeda hadda waa diyaar insha Allah dabka ayaan ka daminayaa baaquli ayaan ku ridayaa ila sii socda insha Allah walaalahayga sharafta leh insha Allah baradhadii halkan ayaan ku soo riday qudaartii waa kaarotadii baradhadii iyo basashii insha Allah markii aan kariyay baaquligan ayaan ku soo riday waxaan kaloo u baahanahay waa jabaati ama sabaayad إن شاء الله وأنكريه بإذن الله سايد ومكرنين تبقى بانتصا إن شاء الله سليدنا كما تاوانين أما واحد سليد كما دوبين إن شاء الله ويقللانتها سيدا دو جيدان إن شاء الله أصحاب تيدا وحان كلا أباهنها جيس ماسوريلا أنصو حقاي بإذن الله إسوا ديارسان وجرا أو حقان aniga kan hadda aniga ayaa xoqday wuu isku yaalaa waa idin tusi doonaa biidhnillah waxaan kaloo u baahanahay tomaatadaas ama yaanyo insha Allah iyo filfil yar ayaan u baahanahay soo marka inta ayaan u baahanahay haddana waan sameynaynaa rabbiga awoodda leh hadduu ka raali ahaado daawasho wacan sida aan u sameynayo biidhnillah cheese-ka ayaan idin tusayaa ahbaabi biidhnillah waan soo qaaday وكنا بعد سايو كجرا بإذن الله إسقوا وين وجرا كان حتى 300 جرام وايه إسقوا 400 إسقوا 500 إسقوا 1 جرام
يعني waxa la wixii aad rabtid oo ka helaysaa biidnillah isagoo xoqona uu jira oo diyaarsan soo markii kan uu isku yaalaa aniga ayaan xoqay bahalka kaaroodka ama birta kaaroodka lagu xoqo ayaan ku soo xoqay ila sii socda insha Allah xabaabi in yar oo filfil ayaan ku darayaa insha Allah bismillah filfisha aad ayay u fiican tahay ma sha Allah dhinaca healthiga aad ayay u fiican tahay isla ogaada biidnillah aad ayaan u isticmaalaa aniga iyada liinta iyo toonta insha Allah saddexdaas basaa'id ayaan u use gareeyaa asxaabtayda haddana waan ku walaaqaynaa biidnillah si fiican sida ila socda insha Allah ahbaabi birti ayaan ku soo shubay wax yar oo subag ah insha Allah saliid ma isticmaalayo blue band ayaan isticmaalayaa biidnillah sida ila socda waxaan ku ridayaa sabaayadii ama jabaatigii insha Allah hadba sidaad u taqaaniid insha Allah waxaan ku darsanaynaa tamaato biidnillah waa marmarinaynaa tamaatada sida ila socda waan wada gaargaarsiinaynaa insha Allah afarta gees ayaan marmarinayaa insha Allah qudaartii ii diyaarsaneed ayaan ku ridayaa insha Allah bismillah haku badinin insha Allah خلاص inta ayaan ku ekaanayaa insha Allah waxaan ku darayaa cheese-kii insha Allah bismillah inta qudaarta aan ku darayaan cheese-ka kor saaraya insha Allah meel kale ma gaarsiinayo sida ila socda inaan ku dhameystiro ma rabo jabaatiga dhan aan cheese-ka wada dhiga insha Allah kaliya inta qudaarta aan soo saaray ayaan ku kor shubayaa ahbaabi sida ila socda insha Allah si yani ay isku dhagaan labada geesood insha Allah kadib waan soo laabeynaa insha Allah labada dhinac ayaan ka dubi doonaa sida ila sii socda insha Allah waxyar subag ayaan ku dhalaalinayaa insha Allah si labada dhinac aan uga dubo insha Allah jabaatiga aku badinin insha Allah saliida ama subaga in yar oo labada geesood ku gadgadisid ayaa kaaga filan insha Allah because dhexda ayaa cheese uga gelisay ama aad ka gelisay soo marka saliida badan ka ayar ma wanaagsana cholesterol ayay leedahay insha Allah baabi sida ila sii socda dhanka kale ayaan u rogayaa insha Allah sidaa ugu riixiix geesaha insha Allah si ay u bislaato ama ay kugu guduudato dhanka hoose ahbaabi dhinaca kale ayaan u gadinayaa kolba dhinac ayaad u gadinaysaa insha Allah si ay casaan ama guduud qurux badan ay kuugu soo baxdo ama ay kuugu noqoto insha Allah dhanka kale ayaan u rogayaa haddana bismillah
sida ayaan ku soo wadayaa axbaabi insha Allah sida ayaan ku soo wadaynaa biidnillah waa ka casaan ayuu soo noqday dhanka kale ayaan u rogayaa haddana biidnillah sida ayaan ku soo wadayaa saa hore idinkugu soo sheegay labaad ayaan haddana saaray asxaabteeda sida ila socda insha Allah tamaatadii ayaan yani ku shubayaa jabaatiga korkiisa insha Allah kadibna waa marmarinayaa si ay u wada gaarto ayaan yani u marinayaa afarta geesood ama afarta dhinac ee jabaatiga insha Allah ama sabaayad hadba sidaad u garanaysid qudaartii ayaan ku gurayaa bismillah haddii aad rabtid basal baar waa isticmaali kartaa iyo kamsar caleen insha Allah asxaabtayda waad ku kordhisan kartaa qudaarta waad ku darsan kartaa waxa la wixii marka aad haysatid ayaad dhex gashan kartaa haddii kala kaluun ayaad dhex gashan kartaa insha Allah cheese-ki ayaan haddana ku darayaa bismillah gargaarsi insha Allah kadibna soo rog ku soo laab bismillah si ay isku qabsato labada dhinac sida ugu riix insha Allah gacanta ama yani weel ama qaando biidnillah ama fargeeto wax alla wixii aad haysatid marka insha Allah ani gacanta ayaan iska bartay insha Allah iyadaan ii fudud waan hilmaamaya intaan qaando raadinayo dhanka kale ayaan u rogaynaa insha Allah markay dhanka hoose soo bislaato ama guduud ay noqoto dhinaca kale ayaan u rogaynaa insha Allah ila sii socdo siday ku soo baxdo aad ila aragtaan biidnillah subagga yar ayaan geeska kaga shubay asxaabtayda insha Allah sida ayaan u warwareejinaynaa biidnillah dhanka kale ayaan goordhow u rogayaa ila sii socdo markii aan sidaan u warwareejiyo insha Allah uu dhanka hoose soo guduuto ama casaan uu noqdo biidnillah sida ugu riix cabaar ayaan sugaynaa maasha Allah tabaarakallah walaalahayga qaaliga ah sidaan ayay ku soo baxday cashadii aan sameynayay caawa ee sabaayada iyo qudaarta dhexda la iskaga gelinayay insha Allah ama jabaatiga hadba saad u taqaanid waad aragtaa quruxdiisa maasha Allah dhadhankiisa ayaa kasii macaan biidnillah labadiisa dhinacna sidaa ayuu noqday ayuu ina si fiican ugu jeedaan insha Allah soo xabata kalena waatana gudihiina waa ka insha Allah dhanka kalena waa kana sidaa ayuu noqday maasha Allah axbaabtayda aad ayay u fududahay ee easy u tahay insha Allah yani quraac waa ka dhigan kartaa iyo casho insha Allah aniga hadda ciyaal ayaan u sameeyay biidnillah sometimes dadku waaweyn ay samaysan karaan sida hore idinkugu soo sheegay maadaama faadka uu ku badan yahay qofkii hilibka iska ilaalinayo ama cayilka insha Allah marmar dhif ha samaysto biidnillah qofkii rabana inuu isnaaxiyo maalin walba ha ku dadaalo sameynteeda insha Allah caruurta ayay aad ugu fiican tahay laakiin caruurta 3 sano ana above ah insha Allah caruurta iskooleyda loogu dadaalo iyo dugsileyda insha Allah si yani jirkooda uu
koriimo fiican u helo asxaabteyda qaaliga ah insha allah ciyaalka laga taxadaro maadaama ubax yaroo soo koraayo ay yihiin biidnillaah ubaxa markuu baxaayo biyaha ayaa lagu badiyaa yacni biyaha ayaa lagu shubaa si yacni uu si qurux badan ugu baxo dhaqsana uu u baxo laakiin biyaha markaa ku badisid ubaxa isaga naftirkiisa wuu qaaraa insha allah soo marka caruurtana waa sida ubaxii oo kale waxay u baahan yihiin gacan ku hayn iyo naashnaashid insha allah iyo wax nafaqo leh oo dhiigoodii jirkooda soo celinaya in la siiyo insha allah maadaama yacni iskuul iyo dugsi ay aadayaan waa in laga dadaalo laga taxadaro insha allah borotiinaadna la siiyo iyo waxyaabaha faadka leh insha allah qofkii rabo ciyaalkiisa inuu naaxiyo insha allah ku dadaalo waxyaabaha faadka leh ee u naaxinayo asxaabteeda qaaliga I hope inaad ka hesheen oo aad soo tijaabin doontaan insha allah ama aad isku soo dayi doontaan biidnillaah please haddaad ugu cusub tahay nagu soo biir si aad noola socotid haddaa hore noola sii joogtayna asxaabtaada la sii wadaag insha allah usii sheergaray asxaabteeda qaaliga ah waxaan idinku dhaafayaa meel walbo adduunka aad ka joogtaan salaanta islaamka ee sharafta iyo qiimaha leh wassalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu fi amaan illah